بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حقاق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تاريخ واحد يقولوا كان الساعة 9 بشي ديسمبر 2019 حقاق ما أنت وخميس ساعدنا وعصر قارن عن شغلنا حرمت أما عاصمتكم ميلقارك دولة قبلات الصوماليات جبلان وكرتية كرامو xarunteeda waxaan joognaa xarunteeda Kismaayo hagaag gacanta waxaan noogu hayaa barnaamij aan doonay inaan ku dheereeyo oo la yiraahdo horin bulshadu ay hadalhayeen halka gali maxay ku hasaawiyeen habeenkii damiiri filimada maxay ku hadaaqayeen hagaag bulshadu waxay ku sheekaysanaysaa waa muhiim waayahay reer Kismaayo iyo Muqdishoba iyo Soomaaliya oo dhan maxaa laga hadalhayay Hargeysa ilaa Hargeysa maxaa la hadalhayay waxaa la hadalhayay waxyaabo badan laakiin in lagu dheerayn maayo sii badin maayo Jubbaland waa kartiya karaamo waa dawladda kartiya karaamo ee uu hogaamiye Axmed Maxamed Islaam waxay walaac ka muujisay arrimaha dastuurka dib u eegistooda iyo dawladda kartiya karaamo walaac ka muujisay inta dooni maayeen sii dhaafo waaya xisbiyadii mucaaridkuna waa dad saasi hadalhayay dadka reer Kismaayo ay hadalhayeen dawladda kartiya karaamo inay walaac ka muujinayso dib u eegista dastuurka tolo maxay haye xisbiyadii mucaaridka iyaguna waxay gaashaanka ku dhufteen ama ay burburiyeen ama ay ka baxeen heshiiskii ay la galeen farmaajo waa madaxweynaha dawladda federaalka iyaguna way ka baxeen waa nimankii madasha qaran la odhanayay arrintaana waa la hadalhayay aday dadku ugu sheekaysanayeen jaamacadda carabtuna waa iska magac u yaaleen waxay dadku sheekaysanayeen imika eega bilaabeen in heer wasiiro la isu yimaado la shiro kanaaca la idinku riday bal kuwaana waan eegnaa waa jaamacadda carabta ina Cabdullaahi Xasan gabagiisa baa ku jirta mandhow cayayirkayga daa carabi wanaage mandhow cayay Saddam Hussein halkii la dhigay waad ogeyday Saddam Hussein waxaan xusuustaa arrin cajiiba oo Saddam Hussein markii maxkamaddu ay ku dhawaaqday ee la yiri waxa lagu xukumay in lagu daldalo gudaama naas ama in front of the people kelmadii u horeysay ee Saddam Hussein ninkii xaakim ku sheegay munaafiqii uu ku yiri waxay ahayd shacabka reer Ciraaq bad meel kaga dhacday gabadhiisii baa la yiri ka waran aabaha hadii la dilay maanta maalinkii la dilay sideed u aragtaa aabaha arintiisa waxay tii aad baan u faraxsanahay waa la yaabay gabadh aabahee la dilay oo leh aad baan u faraxsanahay waa la yaabay waayahay waxa la maxaad ku faraxday waxay tii aabahay xadhiga markii madaxa loo gelinayay sida aabahay ma soo oran sidaas oo lahaabay dib madaxa ula carray ismuuna dhiibin bay aabahay isagoo is dhiibin baa la dilay way taan halka kaga gud Musabbixi maanta wuxuu la shirayay sida dadka reer Hargeysa ku sheekaysanayeen beesha caalamka oo dhan yaa ninkii u timid Musabbixi ah haye ilaahay waqooyiga wariye warima ku dee maxay naga doonayaan marka waqooyi galbeed waxa la hadalhayay Musabbixi beesha caalamka wada hadlay tolo maxaa laga wada hadlayay alla ilaahay way noqotaa war Soomaaliya midnimadeedu waa laga maarmaan la yiraahdo niyo reer Hargeysa niyo ilaahay ka yaabaniyo si carraysan oo horman heer Nelson Mandela nimayo dinka tala fiican billahi Nelson Mandela ba wixii lagu sameeyay madowga iyo balad iyo baaski wixii oo dhan intuu iska liqay dalkii mid laga dhigay naga daayniyo abtiyaalo isaga jiido waayahay wasiir baylana wuxuu yiri baa la yiri waa muqdisho arrinta baanta la hadlayay deyntii waa la inaga cafiyaa bi xillina uu magacaabay deynta inaka la inagu leeyahay anigii oo dhagaha faraha kula jiray oo deynta la inagu leeyahay la yaabanaa ilaa waa 5.5 bilyan weeye oo dhagaha faraha kula jiray baan maqlay deynta Kenya lagu leeyahay baan ayaa dhaweyd Faarax Macallin hadlay iyo sheegay ilaa waa sarkaal sare oo dawladda Kenya ka tirsan waa xogaale oo mutacallimiinta geeska Afrika ka mid yahay Faarax Macallin wuxuu 74 bilyan baa lagu leeyahay Kenya waa waray qarsaaba noqonay 5.5 bilyan waa yartahayba
ورنا قد تجبانو الصومالي حلا نقول ودن عن ولدي بربرين وبلي باس منا كل عين تضبط إني 4 بليون بالقول لي كيلا هذا إسكو سوى الضوء دين تحلي اللي نقد عافلها يفارح بيني يلا أنا كش غرية لي وقال فارح بيني ووضن النكاس ونفي عم إلى خير كسي نكاس اللي قارها هذا الكون السي نبدي النور أنت لقوا أمانة يبغى واحد تاعي هرت حق الله دجال لك الدولة قبل يده هرت كاد جبتين نبدي النور حق هذا أنا بقول نبدي النور محاكم ذا حق فاينانشال سيستم دولة كجف عن ورجع الله ما أرج حتى تيم حنسيا ضر له رياه دارود الشيء مني وما يلا سنعي فاينانشال سيستم والدولة دي وقف يعني ورياه عسكري يا حسين شري عسكري بعد وحي التلفون كود عقلهم سراكيش محل سنين شري جرى الله دولة حس الشيخ محموديو انت صو كله عسكري ونشيل بالاسك قرن شري والله هذا كته يقول لي عوريا ويا كان كجد doorashadii baa hadaba la isku wareeray horta guddigii ay saaray guddoonka baarlamaanka uu saaray doorashooyinkii 15 nin baa loo xulay 15 nin baan idinka waramaya feed baa la isu qaatay niman xildhibaana ilkaha intay dhinac ka dhaceen baaba meel dentista la geeyay waxaana la yiri ma dhici karto 2021 wax doorasho oo qof iyo cod hor dhici kartaa ma jirto anigu waxaan taaganahay way dhici kartaa doorasho qof iyo codi way dhici kartaa haddaba waa dhiirinow say dhici kartaa idha sayidka iyo tiyaatarka dhexdooda ayaa ka dhacaysaa intaas ka dhacaysaa doorashadu sayidka iyo tiyaatarka dhexdiisa intaas doorashada lagu qabanaya qof iyo cod markaas aad ku leediin ma dhici karto doorasho way dhacaysaa nin naga leexda dadka waxaa fayl la gelinayaa ilaa sayidka ilaa tiyaatarka dadka fayl la gelinayaa tigin fara waa lagu wareejinayaa ar soo dhawaada nimanka ayaantii wada Israa'iil galayna waa laga ilaalinayaa doorashada caadi oo qabsoomaysa naga leexdaniyo arrintan waa la hadalay barnaamijkeeni horin bulshadu alla ilaahay qodob baan idinka ilaawo oo ana lafna waa la hadalay baa la hadalay oo maxaa lagu hadalay doorashada soo socota warhooy oo ana la doortaa lalaha warhooy alla doorto difficult spring out person's best quality dhibaatooyinka adag ee qofku soo mara tayadiisay banaanka soo dhigtaa oo NLF ciqaabtii ugu xumayd bay soo mareen dunida halgankii ugu khadhaadhaa bay soo mareen oo balday walaaladood dadkii la dhashay ay dhiibayaan balday gaalka ayaa ku dhiibi hargeysa ku dhiibi boosaasaa ku dhiibi markii u dambaysana muqdisho dhiibtay markii u dambaysana waxba lagu dhawaaqay inay argagixisay yihiin cajiib marka dadku waxay leeyihiin war doorashada dadkiina Soomaaliyeed ee dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya haysta deganow war oo ana lafta horta waa Chinese ugu weynaay oo Chinese kaasi maanta ilsay mid kalena waan kula kaftamaya waa kaftan qaran hada raaligaada oo ana laf markay soo noqotay Eritrea lagaga soo qaaday dayuuradaha ee jigjiga la keenay Soomaaliyeed saa u dhiibaysa balaag hadda ya haddana waxay ugu yaraha dudi jireen owdaanu diidanahay owda bedela waxaa la yiraahdaa oo la fay idinka u bay dawladda Itoobiya 100 milyan hidan dhamaysay maxaad soo faa'iideyseen waxay ku jawaabeen taqaan waxaa la yidhi baa hashiisii dhurwaa dilay qori buu la booday talbeelay hashiisii dhurwaa dilay buurta isla koreen qacdu bush dambaka ninkii xabadii baa ka dhamaatay meel xasku wala intuu ka dhacay baa dhurwaagii baa xasku shimuday oo dhiigga ka daadinay dhurwaagii ninkii dhiigga ka daadinay oo dhagaxaan meel buu ka fakaday xabadiina ka dhamaatay ninkii oo kabna luuli kabna laalaadin baa reerkii inuu dhiiggu ka daayo waxa la war in aadaro rasaastina ka soo dhamaatay dhurwaagiina maadan dilin maxaad soo faa'iiday wuxuu dhurwaagi ma dilin laakiin ninkii hasha iska lahaa inaan ahay dhurwaagu waa gartay arrintaas laga yaabo oo la faa ku maamaaday war ma eegada ninkii wuxuu war dhurwaagi ma soo dilin laakiin ninkii hasha iska lahaa inuu yahay aniga wala dhurwaagu waa gartay marka waxay tiri ragii dhulka iska lahaa Soomaalidii dhulka lahayd inaanu nahay Itoobiya way garatay oo waa ta keentay Abi Ahmed inuu ilaa waxa doontaan sheegta
barnaamijkeennii horin bulshadu maxay hadal hayeen maanta intaasaan kusoo gabagabaynaya ilaa kulantideena dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu